Markaad dhex mushaaxayso waddooyinka ugu caansan caasimadda London, waxa ay indhahaagu qabanayaan gabdho xiran dharka xijaabka leh ee Muslimiinta si aan gambasho lahayn, wadaaddo garweyn iyo dhalinyaro Muslimnimada ku faanaya. Shantii qof ee Ingiriiska ku nool in uu mid noqdo qof Muslim ah ayaa la filayaa marka la gaaro sanadka 2050. Warbixintan ayaan ku eegi doonaa cilmi baaris ka hadlaysa sida Muslimiintu ay ula wareegi doonaan dalka Ingiriiska sanadaha soo aadan. Markii ay dagaalada ka qarxeen dalalka Muslimiinta ee qaaradda Afrika iyo Koonfurta Aasiya, inta badan dadkii Muslimiinta ahaa ee dalalkaasi waxa ay u qaxeen wadamada Yurub oo ahayd goobta ugu ammaanka badan dunida. Ingiriiskuna waxa uu ka mid yahay dowladihii soo dhaweeyay dadkaasi. Waxaa si xad dhaaf ah u sii kordhaya bulshada Muslimka ah ee dalka Ingiriiska sida ay qorayaan baaris cilmiyeed taas oo la soo bandhigay dhamaadka sanadkan, iyada oo tirada dadka Ingiriiska ku nool ay gaarayaan 69 milyan oo qof. Ku dhawaad 10% dadkaasi ayaa ah dad Muslimiin ah. Waxaa la filayaa marka la gaaro sanadka 2050 shantii qof ee Ingiriiska ku nool inuu mid noqdo qof Muslim ah, balse waa wax adag in la rumaysto xilligan. Haddii aad u baahan tahay in aan si dhab ah kuu fahamsiiyo isbeddelka ku socda waddanka Ingiriiska, bal eeg jaantuskan halkan kaaga muuqda. Sida caadiga ah, dadka Ingiriiska intiisa badan waxa ay ahaayeen dad Kirishtaan ah ama haysta diinta Kirishtaanka, laakiin aad bay u sii yaraanayaan Kirishtaanka gudaha Ingiriiska sida halkan ka muuqata. 25 sano ka hor, dadka haysta diinta Kirishtaanka waxa ay ahaayeen 70% marka loo fiiriyo bulshooyinka ku nool Ingiriiska, laakiin maanta waxa ay marayaan 40%. taasina waxa ay muujinaysaa hoos u dhac weyn. Dhinaca kale, dadka Muslimiinta marka loo eego 25 sano ka hor waxa ay ahaayeen wax ka yar 2%, laakiin maanta waa tiro badan oo ku dhow 10%. Farqiga ugu weyn waa halkan, sida uu ku tusinayo jaantuskan oo ay baahisay BBC News. Waxa ay ku muujinaysaa sida ay u kordhayaan dadka diin la'aanta noqonaya gudaha dalka Ingiriiska, waana tiro badan oo hadda ku dhow 40%. Waxa la rumaysan yahay in dadkaasi badankooda ay ka tageen diinta Kirishtaanka, sidaas darteed kaliya in ay u bannaan tahay in ay qaataan diinta Islaamka. Inkasta oo aysan jirin xorriyad ballaaran oo ay haystaan dadka Muslimiinta ah ee waddankan jooga, haddana masaajidda iyo goobaha cibaadada ayaa ka mid ah astaamaha muujinaya kobaca bulshada Muslimiinta. Tirada masaajidda ayaa lagu qiyaasay in ay gaarayaan 2500 oo masjid oo ku yaala dalka Ingiriiska. Marka aad joogto caasimadda London, waddooyinka iyo goobaha dadweynaha waxa ay indhahaagu qabanayaan gabdho xiran dharka xijaabka leh ee Muslimiinta si aan gambasho lahayn. Sidoo kale, wadaaddo garweyn iyo dhalinyaro Muslimnimada ku faanaya ayaa kula kulmi kartaa goob kasta. Waxaa intaa dheer, dhammaan dadka ku nool Ingiriiska ee haysta diin kasta, magaca ugu badan ee carruurtoodu loo bixiyo waa magaca Muxamed, oo sanado badan ku jira kaalinta koowaad ee magacyada dalkaasi. Laakiin ma aaminaysaa in xataa magaca labaad uu yahay Nuux, oo ah magac Muslimiintu ay si weyn ula baxaan? Intaas oo dhan waxay muujinayaan isbeddelka bulsho ee Ingiriiska ku socda. Taasi waxa dheeri ah in xitaa maamulka dalkaasi u socdaan dadka Muslimiinta ah. Taasina waxa tusaale u ah duqa caasimadda London oo dhowaan loo doortay nin Muslim ah oo ka soo jeeda dalka Pakistan, ilaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo ku tilmaamay in ay tani horseedi doonto sharciga Islaamka oo ka talinaya Ingiriiska. Bal adigu aragtidaada hoos nagula wadaag, muuqaalkan la agsaar oo sii sheer gare.